Assalaamu calaykum dhammaan bahda Theory Soomaali walaalaha ku xiran kanaalka. Waxaan mar labaad hambalyo aan u direynaa aan u soo jeedinaynaa ardayda ka mid ah oo kusoo guulaystay imtixaanka. Waxaana mahad u celinaynaa Allah subxaana wa tacaala oo kusoo guuleeyey. Ardayga si toos wuxuu ugu jiraa qadka insha Allah waana ku wareysanaynaa. Waxaana fiirinaynaa ugu horeyn natiijadiisa hadduu Ilaahay idmo. Walaalkeen Cabdirashiid oo ah reer Belgium gaar ahaan Antwerpen warqadiisa natiijada ah oo imtixaanka uu kusoo qaaday waatan kontonka su'aal wuxuu ka keenay 42 meesha laga rabay inuu keeno ugu yaraan 41. Waxaan leenahay Cabdirashiid mabruuk maasha Allah. Inta kuu dhiman Ilaahay ha kuu fududeeyo. Yani qaybtii koowaad ama wejigii koowaad oo ahayd shuruucda waa soo dhaaftay, Ilaahay buu kusoo dhaafiyey. Waxaa ku harsan inaad u gudubto yani practicii iyo barashada gaariga. Ilaahay ha kuu sahlo insha Allah inta kuu dhiman. Haddaan ku wareysano Cabdirashiid, waxaan filayaa imtixaankan ama sidaan ogahay aniga imtixaanka markii kugu horeysay oo aad gasho inay tahay. Cabdirashiid kusoo dhawow. أستاذ ما سنتهاي هذا ما سنتهاي واصح ومركي يجوه الريدي أو أنا امتحان تبع ولي هرم متجين أنت عم بيجين جوري ولي ما جا تيوري امتحان كإكسام طلبوا مرة ولي متجين ما شاء الله. ما أنت يجوه الريدي أنا هرب قلي ما أنت استجابي مركي يجوه الريدي نهاد ومركي يجوه الريدي لا هو يسهلي ما شاء الله. هذا يقوم لي بينه هرب وأنا هالامتحان قلي هالامتحان أقباصه. أوكي Cabdirashiid su-aasha xigta waxay tahay waqtigaa bilaaday casharada ilaa aad ka soo qaado imtixaanka juhdiga soo martay cashirkaas u soo fahantay yani maxaa kalifay in ay kuu fududaato oo markii kuugu horeysay aad tagto meesha imtixaanka aadna ku soo qaado ma noo sheegi kartaa? وما سنتهاي نرتا وحول بحاجة عليه كسبنادين أسأل وحوس ابننا ملاهرة اللابو حصل هاي مركي لقى صوت تبع حاجة لا دذلك أديك أنا جلدي أو عشرة أنا شرح ذي قابك أو دذل بدنا أنا جلدي أو عشرة ذي معلومات كتيرة بدنا أرنا سيدي أنت أصله كبي أرضي أو وجودي بدن عليك وحتى لي عودنا قليل وسؤالها إلى قيب جلاي ومر بيج سوق جلاي قد كأنا وحسب ديارنيني إير وأنا عن قدر صديق وماركنا وأيو بقول كيبا شن كمية عمل عسلي هاي أو عشرة برامج شكرته كيسترا عن سمية يعني شخصية دي أورادي أنت أصل قدرة عسلي هاي وحكي كده بيدي أنا ما تي مركان تجيب حاجة لا ينوسوا قولي. Cabdirashiid أيه كسر. marka marka arinta marka hadaan kala qaadno qaabka marka nidaamkii aan maray ama juhdigii tirada badnaa aan sameeyo kaleeto yani marka hore horta dadku waxa ku qanacsan in baawur iska qaato laakiin waxa isweydiiyay sababta aan baawur qaadana waxay tahay iyo waxa u baahanahay ahdaafta aan marka inta wax barto waqti aan gelinayo oo qarash aan gelinayo sababta iyo reasonka ka dambeeya arrinka si fiican waxaad diyaani shakhsiyadeeda waxaad iskugu laabtay horta sababta aan barnaamij maxay tahay inaan barto oo markano yani theory barto inaan baawur qaato waxay u kalifay marka waxa ogaaday nolosheedu inuu muhiim u yahay markano shaqadeeda ku xiran tahay oo shaqooyin badan aan dalbado kaleeto in badan markii shaqadii kontraagi wixii aan isku dayo kaleeto inay mar walba lagu soo celina la dhahayo ma haysataa reebways markii kontraagi wixii aan soo dhameeyay ma reebways si fudud ku imaan kartaa goobta shaqada maadaama guriga uu ka fogiyo kale waashaas dhowr jeer u soo laabatay oo waliba aan shaqeynayo shaqo kale markaan damco mar walba su'aashii ugu soo laabay jirtay iyo sida aan u qaba aan dareemay inaan u baahanahay dar badan u yahay
taasaa waxay kaliftay marka inaan markano yani theory-ga fikirkii hore aan ka haysto oo ahaa neo theory-ga iska dhigo waxaan iska baro cilmi ahaan u baro yani markaasa taasaa wax badan iska bedesho baahideedii ayaa waxay noqotay zaaid qof walba marka oo baranayo theory-ga waxa inuu ku base gareeyo aad u fiican tahay baahida uu u qabo theory-ga maxay tahay macnaha hadduu zaaid muhiim u yahay inuu bartaan kula tali lahaa macnaha maasha allah hadda waxaa noo sheegtay waa ku mahadsantahay macnaha su-aashaan uga jawaabtay waxaa noo sheegtay hadafka ugu weyn aad u baratay gaariga iyo wax kugu kalifay aa noo sheegtay yacni laga bilaabo maalinka kusoo biirtay tiimka ilaa iyo hadda isteebiyada oo waxbarashada ama aad qaabka u baratay yani heerka aad kala martay iyadoo kooban ma sheegi kartaa qaabka aan soo maray horta marka hore waxay ahayd aniga waxaan ku bilaabnay galaas ardayda galaaska marka yani qof walba nidaam wax u bartaa aniga shakhsiyadeeda waxaan jeclahay nidaamka marka wax baranayo qor akhri ku celi mar kale shaqaas wax ku bartaa inaan qoro akhriyo kadibna ku celiyo macnaha taasna marka waxa aad iiga saaciiday waxay tahay sida aad nooga qabtirtay oo aad u soo gudbinayda casharada iyo balaas casharadii aad intaan noo duubtay si adiga mar dambe aan kugu baahan cashirkii oo duuban oo diyaarsan aan haysano oo haddaan u baahan asagoo recording aan dib u akhri karna ama dib aan u daawan karna macnaha maasha allah aniga marka shakhsiyadeeda qof walba qaab wax ku bartaa ani marka dadka waxaan ahay jecel marka wax baranayo kaleeto waa hubiya macnaha tusaale ahaan waxaan jeclahay inaan 100% haddaan gaarsiin waayo xataa ugu yaraan 90% inaan gaarsiin karo sidaas awgeed waxaan sameeyey qaabab badan oo kala duwan oo markaa dadka wax u bartaan qofba qaab wax u bartaa aniga qaabka waxaan jeclahay inaan wax u barto wixii waa qoraa macnaha wixii waa qoraa la u bedelaa si maskaxdeeda markaa lada markii qoraalka adiga aad gacantaada wax ku qortid iyo markii meel wax ku qoran akhridin maskaxdaada sida wax u qabsiinaydo ama u way kala duwan tahay macnaha farqiga u dhaxeeyo marka qof marka gacantaada markaad wax ku qortid wixii aad gacantaada ku qortay marka akhrinaydo way ka fudud yihiin markaad meel wax ku qoran akhrinaydo ama xasuusanaydo macnaha marka anti taktiga aan isticmaalo waa noocaas oo macnaha waa qoraa waxyaabaha aan qorayna waxa uu badnaa ereyada muhiimka ee ku saabsan theory wax walba waxay leeyihiin keywords waxay dhahaan ingiriiska ereyo waxaa jira furo u ah oo qofka uu fahmo waxaan uu baranayo wixii rabaa ha noqdaan inuu si fudud u barto ama si fudud u xasuusan karo macnaha haddii wax laga weydiiyo ama uu jawaabi karo su'aal haddii laga weydiiyo ayay macnaha ay kalifayaan marka ereyadaas aanay xoogga saarin inta badan yacni shakhsiyadeeda markii casharadii aan dhammeynay oo cashar walba markii aan dhigto jabtarka markuu dhamaado kaleeto waa qori jiray macnaha videogan dib u daawan jiray kadibna waa qori jiray ereyada ku jira muhiimka xisaabaha hadduu ka hadlayo waxa markaas oo focuska uu saarayo kaleeto ayaan dib u qori jiray kadibna wixii aan dib u muraajacay jiray markii casharada dhan aan dhameeyana pageka adiga aan siiday aan ku tababari jiray macnaha training aan sameey jiray marka in badan trainingka xataa ardayda oo ay arki karaan pageka qofkii soo galo kaleeto imtixaanka inta ku qoran yahay meesha qofka ugu badan ahaa oo isticmaali jiray marka iyo su'aalaha muhiimka ah oo markaas oo kale ugu adkaada ama sawirada aan arko meelo kale aan ku arko kaleeto adiga kuula soo laaban jiray aan ku dhigi jiray ustaadii ka maxaa laga wadaa ii sharax xataa ay isku jirin waxyaabo oo aan cashir ku qaadanay laakiin extra waxyaabaha extra aan shakhsiyadeeda u raadiyo oo sawirada kale iyo meelaha kaleeto waxyaabaha lagu haayo ee ka baxsan cashiradeena macnaha maasha allah su-aasha ugu dambeysa xadoshiid walaalaha ama ardayda kale kaa dambaysa maxaad kula talinaysaa amaba taktig ahaan ama tip ahaan ama tab ahaan aad u siinaysaa dhehaysaa waxa iyo waxaa sameeya si ay nagu fududaato aadna ugu soo guulaystaan imtixaanka teoriga walaalaha iga dambeeyo ee gadaashe wax baran doono ama marka hadda ku jiro ama hadda kadib bilaabi doono yani waxaan kula tali lahaa dhowr arrin arrinta koowaad waxay tahay marka waxaa bilaabayay sida data warkaygaan ku sheegay waxaa ka bilowdaa sababta reasonka waxaan u baranayay maxay yihiin
markii aa heshid reasonka waxaan aa u baranayid waxaa kuu sahlaananaya waxaan aa baratid haddaad ogaat waxa inay muhiim kuu yihiin oo naftaada muhiim dabcan muhiim waaye 100% maantadan haddii la weydiiyo muhiim yaan haa muhiim waaye dadka aaminsanahay markii waxaan aa heshid baahidaadii markaad is hor dhigtid oo adiga maskaxdaada ka shaqaysid aa istusidid waxa weeyaan waxa muhiim kuu yahay so markuu waxa muhiim kuu yahay waxa inaad saartaa focuskaaga macnaha oo maskaxdaada mashquulsan ama adigoo si wax ka yihiin oo kaleeto inaad theory-ga aad lagu hala gelin aad bilaabin ama aad markino 10 cusub aad isku furin macnaha yani maskaxdaada adigoo focuskaaga oo saaran yahay adoo shaqeynayo adigoo wax baranayo oo waxyaabo kale ku jiro waa sameyn kartaa theory aniga waa sameeyay anigoo shaqeynayo aan hadana theory-ga 10 ka soo qayb gali jiray waa sameey jiray laakiin muhiimadu waxay tahay waxaan inoo focuska aad saartid oo adiga maskaxdaada kala dhacsid waxaan muhiim ku yihiin oo sida nolol maalmeedkaaga uu muhiim u yahay cuntada iyo cabitaanka baabuurkan inuu qayb kamid ah noloshaada u yahay ama shaqo kaaga xirnaa karo ama dana kale kaaga xirnaa karo ama family aad tahay inuu muhiim kugu yahay xisaabta aad ku darsatid focuskana aad saartid number 1 number 2 markii focuskaaga asaga aad saartid waxa dhaceeda inaad adiga waqti gelidid oo aad juhdi gelidid oo aad wax akhridid marka waxa akhrinayid marka waxa sameey kartaa laba qaabood dadka wax ku bartaan dad aragti fiican ah jiro ama cilmigooda aad u fiican yahay aqligooda aad u fiican yahay furin yahay oo wixii arkaan hore ka qabanayo oo wax sawir karo laakiin waxa ka fiican qofku waxa u barto aqoon ahaan wax waa sawir kartaa su'aashii iyo jawaabtii waa isku sawir kartaa tusaale su'aashii arki kartaa jawaabtii automatic maskaxda ku qaban kartaa sida dadka qaar ay sameeyaan laakiin the best waxa ah ugu fiican waxay tahay waxa aqoon ahaan u baratid oo hadii birito qof ka dambeeya aad u sharixi kartid hadii wax laga weydiiyo ka jawaabi kartid muddo hadda marka 10 sano 20 sano kadib hadii wax laga weydiiyo xataa aad si toos ugu jawaabi kartid oo maskaxdaada dib u soo akhri kartaa macnaha oo ka dhigi kartaa aad aragtay 10 sano kadib aad ka jawaabi kartid si taas u dhacdo marka waxa u baahan tahay waxyaabaha furaha u ah waxaan la baranayay oo theory-ga waxyaabaha furaha u ah sidoo kale erayada muhiimka ah markano aad loo isticmaalo waayo jabtar walba dhigani waxa ku jiro eray muhiim erayada sintaaq qabatid ina maskaxda geliyay luqadda Nederlandka dadku waa sida anoo kaleeto Nederlandkayga ma dhigi kari waa Nederland aad u fiican in yar ay Nederlandka wax ka fahmaa ma adka xoogano laakiinse erayada ayaan dib u akhri jiray oo wax weydiin jiray marka erayada keywords-ka inaad qoratid oo aad meel gooniyo note inta sameysatid qalin warqad qaadatid ku qoratid jabtar walba erayada muhiimka ku jiro waxay ka hadlayaan xisaabaadkooda qortid dejidid sidoo kalena ardayda waxaan kula talin lahaa imtixaanka meesha imtixaanka la aada inaadan iska aadin marka hore isku diyaar gareeyid casharada inaad fahantay baraatikeeda gaar ahaan horta macalinka waa kaaga mahad celinaa ustaadi maadaama aad koodna siiday oo aan marka casharada ku baraatikee karno jabtar baa aniga waxaan sameeyay dadka waxa ahay waliba jabtar ardayda kontonka su'aal meesha u carraya aan intaas ma sameeyay waxaan sameeyay jiray jabtar walba keywordskiisa marka akhriyo ama erayada muhiim ku jira marka akhri jabtarka laftirkiisa oo si gooni oo special ah ayaa waxaan ku galay imtixaan oo testina oo aan nafteeda ku sameeyay kadibna markaan diyaariyo oo jabtar aan u dhameeyay 29 cashar waaye casharada 29 ilaa 30 cashar ku dhow yihiin markaan dhameeyay haddana 50 su'aalaha u gudbay soo marka qofka ha u cararin meesha imtixaanka weynka marka xogaayaa casharka dhigatid ha cararin joog su'aalaha qaado inta waxa ku tababarataa sababta meesha imtixaanka qalqal badan ah sameeyay dad badan imaanaya dad aqoon imaanayo adiga wax macquul maskaxdaada ayadoo oo furniin oo kaleeto inaa meesha tagtid oo kale BC marka si aad qalqal ugu abuurmin oo su'aalaha aad taqaan aad u qalbin hadhowna aad markino aad farta u qaniin farta dhexdeeda ka qaniin marka hore isdeji casharada qaado dhameeso imtixaanka practicalka gal ku celceli kadib marka ogaatid inuu baasha ku fadhido oo asdiidaa leeyahay disida oo markaan waa markii ugu fiican tahay okay way markaas inaan imtixaanka aad macna si marka insha Allah aad markan ku guuleysatid sida aniga aan sameeyo kale aniga ma carin ma ordid awooda u lahayn aan tago fursada helay marka qaar ma aadin ma ordid waa sugay waqtigii ugu habooneed hadda maanta kale waa tagay imtixaanka galay waa ka soo baxay dad badan oo meesha fadhiyay oo cadaan lahaa oo madow lahaa arkay markii ka soo baxayeen hoos fiirnay aniga aan qoslaa ka soo baxay alxamdulillah sabta waa baastaalay soo yiri waqtiina wali soo alxamdulillah ma sha Allah
waxaan filayaa dad badan ama walaalo badan ama arday badan oo imtixaan galay oo waqtiga yacni ku yar oo markay imtixaanka galayaan 15 second aa la siiyaa 15 second way ku yar tahay waxaan filayaa inaan kaa maqlay mar in adiga ay kaa badneed maxaa kalifay taas ma sheegi kartaa waxaa kalifay sidii hadda aan sheegay marka hore waxaan sameeyay casharadii aan bartay macnaha waxaan u bartay si qalbiyan u bartay casharadii aan ku taxalluqay waxaan u bartay cilmi ahaan u bartay macnaha uma baran su'aal iyo jawaab uma baran waa waqti asasiye waayo waxa aaminsan waxaan inay wax muhiim yihiin beritana markano qof kale iga dambeeyo inuu wax iga weydiin karo inaan u jawaabi karo at least ugu yaraan nafteeda markii laga soo dhaafo dad kale xataa ku saacideyn karo macnaha soo marka su'aal iyo jawaab ma baran ana waxaan bartay cashirka caadiga aan bartay wuxuu ka hadlayaa qawaaniinta saxda wixii mawduuca ku saabsan oo saxda aan bartay soo markii wax saxda ah aan bartay waxaan sameeyay arday badan oo waxa jirto imtixaanka iska tagay oo meesha imtixaanka kale way tagayaan maanta kale waxa macquul 20 loo keeno 16 keeno 30 keeno 25 keeno oo soo baasin oo mar walba dhaco laakiin wuxuu sameeynaa sawirro ka soo qaada macnaha marka su'aalo tiro badan oo saas oo kale taa iyo sawirro ka soo qaadeen oo kale ayaan arkay cashirka marka aan su'aalihii dib u fiiriyay oo kale waxay u badnaayeen wax cashirada ku soo qaadanay wixii su'aalihii aan iska fiirinayay marka macluumaadkii iyo wixii ku saabsanaa sababta anaga sidii cashirka aan u baranay Netherlandka isla sidii lamida in lagu soo dhigo xoogaa yara mar qaar ma dhaceedo su'aalaha qaar wuu ka duwan yahay bixin isticmaalaan sida af Soomaaliga uu kala duwan yahay oo lahjadaha lagu kala duwan yahay af Soomaaliga erey bixin waxa la isticmaalayaan soo marka erey bixintaas ay isticmaalaan waxa macquul ereygii wixii adoo macnaha aan taqaani ereygii inuu ku qaldo macnaha oo meel kale uu kula aado sida aniga maanta igu dhacday 3 su'aal camal ah saas oo kale igu dhacday macnaha erey bixinta aan ku qaldamay soo marka 15 marka waxay ku siinayaan marka aad fadhiisatid markii kugu cusubto kale meesha aad fadhiisatid dhagaha aad gashatid codka waxa macquul inuu saameyn kugu yeesho marka hadda codka ka cabsanaysid beejka macalinka wuu leeyahay qayb coda haddaad cod ahaan u dhageysan kartaa computer ahaan aad u gashay dhagaha u dhageysan kartaa cod ahaan haddaad rabin codka dhagaha dib malaha waa iska siibi kartaa ani marka waxaan sameeyay su'aasha marka hore waa lagu akhrinaa waxa ku akhrinayo computerka ku akhrinayo cod ahaan u maqle su'aasha akhrina kadib jawaab u akhrina soo marka su'aasha marka aan indhaha ku dhufto automatic sawirka marka hore indhaha ku dhufta su'aasha indhaha ku dhufta kadib jawaabta hore ka doorta that means marka intuu la akhrinayo oo qoraalkii iyo jawaabihii la akhrinayo ani waa kasii jawaabay already 15 second ka waxay ku dhamaanayday anigoo fadhiyo oo kursiga dhabarka ii saaraya macnaha oo sugaaya kaliya in su'aasha kale ta loo gudbo macnaha fol dilay sugaaya su'aasha kale ta suganaya macnaha inta badan mostly waxaan leeyahay karaa 45 ilaa 46 su'aalood oo su'aalihii maanta aan gala kamid ahaa anoo dhabarka markaa kursiga ku sitaxsan oo jawaabta su'aal aan fakar 3 miya 4 su'aal miya aan u fakaraba inta badan ma fakirin macna oo ku dhufanay waxa aqaani ahaayeen ba already ma sha Allah waxaad tiray Cabdirashiid taank maanta soo gashay markii kugu horeysay ahayd waxaad dhahday su'aasha markuu akhrinayo computerka iyo jawaabahaba yani adiga waxaad haysatay jawaabta saxan aad dooratay sida caadiga ahna 15 kan wuxuu ku bilaabanayaa markuu su'aasha akhriyo iyo jawaabaha kadib ayay ku bilaabanaysaa waxay ka dhigan tahay marka inaadan u baahnayn 15 second macnaha yani qaarka kale sida ardayda kale ama dadka kaleetana ay 15 second ba ay ku yar tahaybo in badan ay ka caawdeen ma sha Allah dabcan waxa keenayo inay ku yaraato wax kale maahan sida dad aan soo sheegay warkay ku jirtay ardayda waxay u badan yihiin mostly dad meeshii imtixaanka si degdeg ku tagay ayagoo markan casharada ama dhameysanin ama markan wax badan fahmin ama markan casharada markii dhameysteen oo kale wax badan practical ay qoon sameeyeen si degdeg meeshii ku tagay ama qof su'aali jawaab marka hore xifdisanaaba oo maskaxdiisa su'aali jawaab ku qufulneed su'aasha ijaab sawir soo arkay ama waxa la tusay ama markan su'aal uu xifdisan yahay su'aali jawaab uu meeshii ku tagay macnaha saado marka waxa waay tigtaas u ciyaara kaliya jagjag oo siina that means marka su'aashii ma yaqaan meesha ka jirto marka uu ku qalqala qofkii uu qalqala wuxuu sameeyay marka 15 kiyaaba markan ku yaraanay qofkii uu fikra
ma diyaarsana marka hore laakiin marka hore marka soo diyaaridid oo aad marka maskaxdaada ka soo shaqaysid oo aad istusidid oo wixii aad trading ba soo sameeyid way ku fududaanaya macnaha 15ka xaqiiqatan su'aasha akhrinta bisa kaaga fududba imtixaanka aan galayana ma ahayn taraq ma ahayn waa sneller waa macnaha degdeg oo ahaa ما شاء الله ugu dambeyn waxaad tiri walaalaha ama ardayda kale waxaan macnaha aad kula talinaysaa in si fiican isku diyaariyaan luqad ahaan iyo erayada oo yani u ah furaha qayb walba inay aad u fahmaan macnahooda si ay hadhow ay ugu fududaato in fahmaan su'aasha si degdeg ah ayna uga jawaabaan su'aalaha jawaabahooda si fiican insha Allah Cabdirashiid waxaa ku leeyahay mar kale mabruuk alfa mabruuk insha Allah inta dhiman ilaha kuu fududeeyo ugu dambeyn maxaa kusoo ganaanaysaa ama kusoo kusoo koobaysaa insha Allah ugu dambeyn waxaan kusoo ganaanada waxay tahay markan oo yani horta qof walba ha ogaado maalin uun markan oo darwal waa noqon doontaa insha Allah maalin waa heli doontaa laakiin waqtigaaga iyo saamahaaga waa iska qoran yihiin qof walbana waqtigu ilaahay markan calaf u geliyo helaa laakiin dadaalkana waxa waaye la tansan nasiibka waa macnaa nasiibkaaga inaad hilmaamin oo dadaalka iyo markan aad juhdi sameeyeen waa loo baahan yahay waqti yar oo juhdi sameeyeen waxa macquul wax badan la kuushid mid labaadna kalsoonida naftana waa loo baahan yahay naftaada marka kalsoonina inta gelisid marka meesha imtixaanka tagayid adoo kalsoon oo isku kalsoon oo aaminsan waxaan haduu ilaahay kugu guuleynaa soo qaadinid that is exactly bas intaas ku filan iyo cashirada inaad kala jarin ee si dhameystiran u qaadatid oo aad ka bilowday min ilaa tuzad agaarsiid macna oo aad ka caajisin oo aadan markan oo yani aad focuska asagu ku saarnaado ilaa waxaan ka mir dhalinay macna caajiska ilaalin adigoo oo markan wixii dhameeyna aadan cararin intaas aan balan insha Allah ardayda intaas kula talaha adigina ustaad waa mahadsan tahay in badan aad dadaalna geliday oo badan aan la taliday talooyin badan waana siiday waxyaabo badan aad inoo anfaceen oo waa hadda waa natiijadii waa gaarnay marka arday badan oo gadaasheena waa rajeynaa in ay kan saas kala markan وفضات أيكم يسوقها بين الكريم. وإن عبدالرشيد أديك مدن إن بدن إلهي كوزوفو ذي الحمد لله إن عبدالرشيد وحكومة سنت هاي إن عد وقتي نسيسي سي عن كوجو رئيسانو عدنا ولا لها أرضي كليتنا فكر قابك أو سجولي ستي قابك أو صبرتي أنا أدوجد بس إن شاء الله حقول لنا مركل مبروك إن شاء الله تعالى وحنا كورة جانا نقول عن قيبتك كحكتا دو إلهي دمو sidoo kale waxaan u rajaynaynaa walaalaha jecel inay bartaan inay isdhisaan ay dadaalaan inay ku soo guuleystaan waan ku faraxsanahay maadaama markaadii kuugu horeysay aad ku soo guuleysatay waa record noo galay bahdaray theory aan anigu wahay macalinka record noo galay diiwaanka noo galay macna ay ka dhigan tahay arday markiisii ugu horeysay ku guuleystay oosan soo dhicin ما شاء الله كلنا هاي إلها ما تسكله مركله مبروك هنبلي إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.